Waa qaybtii 29aad qisooyinka nebiyada, ahna qaybtii labaad siiradii xabiibkeena, nabigeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam. Waxaan qaybta hore uga soo sheekaynay dhalashadii xabiibkeena, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaato. Nebiga wuxuu ku noolaa nolol farxad iyo barwaaqo ah. Maalintii dambe ayay hooyadii Aamina doontay inay booqasho ugu tagaan nebiga reer abtigii oo deganaa magaalada Madiina, waana qabiilka Bani Cadiy bini Najaar. Reer abtigii aad ayay u soo dhoweeyeen, waxayna ku farxeen booqashadiisa. Da'diisu waxay ahayd markaa 6 sano. Booqashadiisa kadib waxay u soo kaceen magaalada Maka oo ah deegaankoodii, laakiin markay marayeen mandiqada Al Abwa ayay hooyadii Aamina dareentay jiro ku soo booday. Kadibna halkaas ayay ku geeriyootay nebiga hooyadii. Waxay ku noqotay nebiga naxdin iyo anfariir, waxaanu waayay hooyadii isagoona horey u arkin aabbihii oo ka hor geeriyooday intuu uurka ku jiray. Nebiga waxaa loo soo qaaday dhanka iyo awowgii iyo magaalada Maka, waxaana kafaalo qaaday awowgii Cabdulmudalib. Awowgii Cabdulmudalib aad ayuu u jeclaa, wuxuuna ka fadili jiray carruurtiisa kale oo ah nebiga adeeradii iyo eedooyinkii. Waxayna caado u lahaayeen maadaama uu Cabdulmudalib yahay sayidkii reer Quraysh, waxaa loo gogli jiray sajaayad uu ku fariisan jiray, kadibna ubadkiisa ayaa la fariisan jiray. Hase ahaatee looma ogolayn in cid aabbahood ka horreysa ay fadhiisato booskiisa ixtiraam awgii. Si kastaba ha ahaatee, nebiga waa loo ogolaa inuu fadhiisto. Awowgii Cabdulmudalib wuxuu u masixi jiray madaxiisa iyo dhabarkiisa, waxaanu odhan jiray, wiilkayga arrin weyn baa u sugnaatay. Sannadihii uu la noolaa awowgii maysan sii raagin, oo 2 sano kadib ayaa la oofsaday Cabdulmudalib oo ahaa nebiga awowgii. Geeridii nebiga awowihii kadib waxaa kafaalo qaaday adeerkiis Abudaalib, wuuna garab istaagay markastuu u baahnaa. Adeerkii wuxuu baray xirfadda ganacsiga iyo wixii la mid ah. Markay da'diisu ahayd 12 sano ayaa adeerkii u kaxeeyey dhankaas iyo Shaam. Markay gaareen magaalada Taysari ayay la kulmeen nin baadari ahaa oo haystay diinta Nasaarada. Kadibna waxa uu fiiriyey wiilka yar oo eegaya labadiisa garab dhexdiisa, wuxuuna ku arkay calaamad ama astaan tilmaamaysa inuu nebi yahay. Baadarigii ayaa weydiiyey adeerkii wiilka aabbihii, wuxuuna u sheegay inuu wiilka dhalay isaga. Laakiin baadarigii wuu ka biyo diiday oo wuxuu yidhi, adigu maad dhalin wiilkan ee aabbihii ma noolaa? Dabadeedna Abudaalib ayaa yidhi, haa, aabbihii waa geeriyooday. Kadibna baadarigii ayaa u sheegay in waddadii ay soo mareen dhirtii iyo dhagaxaantii taallay ay u sujuudeen, waxaanay u sujuudaan oo keliya nebiyada. Markii ay yaqiinsadeen in wiilkan yar uu barakaysan yahay oo mustaqbal weyn leeyahay, ayuu baadarigii ku yidhi, wiilkan waan u cabsanayaaye ku celi magaaladii aad ka timaadeen ee Maka, halkaas baa u roone. Kadibna wuxuu adeerkii ku daray rag la socday oo geeya magaaladii Maka. Waxaa halkaas inooga cad in calaamadihii nebinimada ay ka muuqanayeen nebigeenna isagoo da'diisu ay aad u yar tahay. Waxaanad ogaataan dadka Kirishtaanka haysta inay garanayaan in diinta Islaamku tahay diinta saxda ah, una kala garanayaan sida owlaadooda ama ubadkooda. Dagaalkii Fujaar. Nebiga markay da'diisu ahayd 20 sano wuxuu ka qayb galay dagaal loogu magac daray Macrakatu Fujaar. Sababta dagaalku ku bilaabnayna waxay ahayd qabiilka Quraysh iyo Kanaana oo isku dhinacaya nin ka mid ahi dilay nin kale oo ka tirsanaa qabiilka Qays Caylaan. Sidaa awgeed waxaa dhacday dagaal la isku laayay. Waxaanu dagaalka dhacay waqtiga bilaha xurmaysan oo ay mamnuuc ahayd in la dagaalamo. Si kastaba ha ahaatee, nebigu wuxuu u diyaarinayay adeeradii leebka iyo qaansada la isku gano. Kadib markii la isdhaafsaday dhimasho iyo dhaawac, ayay labadii qabiil ku heshiiyeen in diyo la kala qaato markii meydadkii la isu tiriyey. Dagaalka kadib waxaa magaalada Maka soo galay nin baayac mushtari ahaa oo gadaya alaabo, waxaanu ka iibiyey nin la dhaho Caas ibnu Waa'il. Ninkaasi waa dafiray lacagtii lagu lahaa oo qaab dulmiha ayuu uga qaaday xoolihiisii. Kadibna wuxuu tiriyey ninkii alaabada lahaa gabay uu kaga cabanayo dadka degan magaalada Maka. Arrintii waxay gaartay Subayr ibnu Cabdulmudalib oo ahaa nebiga adeerkii. Kadibna wuxuu baaqii gaarsiiyey reer Bani Haashim iyo reer Bani Cabdishams, waxayna iskugu yimaadeen shir lagu qabtay guriga Cabdullaahi ibnu Jadcaan oo lagu gorfeynayo qaabka loo joojin karo dulmiga magaalada dhexdeeda ka socda. Xilfi wadaagaas oo la magac baxay xilfi al-Fusuul
waxaa ka qayb galay rasuulka sallallahu calayhi wasallam, wuuna ku faani jiray oo wuxuu yidhi rasuulka sallallahu calayhi wasallam, haddii geela kii cascas ama guduudan laysiinayo, waxaan ka fadili lahaa ka qaybgalka shirkaas. waxayna ku tusinaysaa sida uu nebigu u necbaa dulmiga. nebigu wuxuu raacay dhallinyaronimadiisii ariga oo magaalada Maka ayuu ku dhaqi jiray, isagoo ku qaadan jiray dirhamo yar ilaa ma eebbe ka maaransiiyey oo uu galay shaqada ganacsiga. qaybtanna halkaa ha inoo joogto. soonka iyo acmaasha wanaagsan allah inaga wada aqbalo. la wadaag qisooyinkan walaalaha kale si ay ugu cibro qaataan, adna aad ajar uga heshid oo inoo sheergareeya. ramadaan mubaarak.